الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله شرفت الرسول وعلى الملك جوته وإيدي سلامي maanta halkan waxaan usoo galay inaan inkigi digo run ahaantii waxaa igu dhacay marka koowaad waxaan rabaa inaan ka codsado inaad Allah subxaanahu wa tacaala iga soo baridaan kulley nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma anzala Allahu daa'an illa anzala lahu dawaa'an. Allah subxaanahu wa tacaala soo ma dejin cudur ilaa hadduu soo dejiyo daawadiisu soo dejiyo. daawadu waxaa ka mid ah walaalahan sharafta leh quraankeena kariimka ayaa ka mid ah marka koowaad. marka labaad daawadan hadda aan hospitaalka joogo conventional medicine baa la yiraahdaa ayaa ka mid ah. marka horta Allah subxaanahu wa tacaala ayaa daawo haya laakiin in la isdaaweeyana waa muhiim. marka walaalaha sharafta leh waxaan qabaa oo hadda hospitaalka aan usoo galay waa dhiikar iyo waa xanuun weyn. maxaa igu riday dhiikarka maxaa igu riday waa su'aasha. waxaan rabaa marka inaan idiin sheego waxa igu riday inaad idinkana ka digtoonaadaan. qofka bini aadamku waxa ku dhaca qofka kale inuu ugu dig weey tii ilaahay waa gooni laakiin asbaab ay leeyihiin wax kasta. marka koobaad walaalaha sharafta leh saad garanaysaan dee anay macallin dugsi baan nahay 2009 ayuu ugu dhacay 2009 April 7 ayuu ugu dhacay dhiikarkan. waxa igu riday waxaa ka mid ah marka koobaad waxaanan qaadi karin baan qaaday. horta waxaanan qaadi karin waan qaaday. waxaa ka mid ah dugsi baan haynay run ahaantii saad garanaysaan masaajid ayaan khayr allah siiyo rag walaalo oo sharafta badan iyo gabdha Soomaaliyeed ay noo dhiseen oo la masaajid kuwa la xaafada hays ayaan macallin ka noqday 700 oo caruur hal noola keenay. saad garanaysaan caruurta Soomaaliyeed oo qurbaha jooga waa badan macallin way 700 oo caruur waxaan ka qaadanay 473 caruur aan ka qaadanay. tiida horta waxay noqotay macallimiinta iska yar inaan caruurtaas qayladoodi buuqoodi mataqaanaa stresskoodi horta inuu meeshaas dhiikarka ugu dhuftay noqotay. qodobka labaad waxa weeye anoo dugsi iyo ayaan security ka shaqeynay habeenkii. taas waxay ii dheereen markaan ka soo baxay habeenkii waxaan sii aadayay Hammersmith college la yiraahdo. waxaan suubinayay aan rabay inaan suubiyo run ahaantii on ilaa jaamacad rabay inaan ku gaaray laakiin jaamacadii aanan ku aadin markii dambe radiography waa raajital weey ayaan rabay inaan suubiyo. ala kulli xaal taas iyada lafteeda waxay ahayd shaqo kale oo gooni aan wadi. qodobka run ahaantii afraad waxa weeye stresska Afrika ayaa ugu furnaa. Afrika waa taqaanaan qofka markuu soo dhoofo dadka walaalihiisa buu rabaa badanaa inuu garab qabto. wallahi dadka qurbaha jooga ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdiyo ilaahay arda uu xifdiyo. wallahi dadka qurbaha jooga dadka naxariis badan oo ka wanaagsan oo ka beer nugul weligii ma arag aniga kulley ilaahay subxaanahu wa tacaala weliba gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan ka fikiriyay dadkaanaga soo qaxay Soomaaliya ka soo qaxay caruurtoodii baan iskuul iyo wax kasta geeyay. caruurtii baan ka fikiray iskuul fooskoodi iyo cuntadoodii iyo dalay ay joogeen oo qurba ah oo Kenya la yiraahdo fikirkoodii taasna stress kale yahay. waxaan ku yiri walaashii walaalkay ka digtoonow dhiikarka sokorka cholesterolka mataqaanaa cudurrada waaweyn ka digtoon. waxaad ugu digtoonaan kartaa iska yaray waxaadan qaadi karin ha qaadi. walaashii oo ku baryaa walaalkii oo ku baryaa waxaadan qaadi karin ha qaadi. marka koowaad maxaan ku yiri dugsi baan hayay oo caruurtaad aragtay qurbaha halka unug uu la dhib yahay 10 unug dalkiinu la mid yahay yaan dhinac ka hayay. dhinac security man aan mataqaanaa aan ka qaraacay. dhinac college baan ka dhiginay. dhinac stress Afrika ugu furnaa. ilaahay wuxuu xugmay 2009 inuu dhiikarka ugu dhufto. markaan dee Allah subxaanahu wa tacaala kulli iyo qoray wax kastaba anaga waxaan aaminsanahay muslimiin haddaan nahay lixda tiir iimaan ayaan aaminsanahay an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi. wuxuu ilaahay kuu qoro khayr iyo sharba ayaan aaminsanahay anagu sidii nimankan gaalada oo kale ma nihin oo qofka isdilayo. waxa weeye anagu ilaah baa noo qoray waxaan waa qornayd waxba kama qaadi karno move on hore u socwaay. laakiin hadda waxaan idiin sheegaa waxa weeye war walaal ka digtoonow waxyaalaha aan igu dhacay ka digtoonow oo waa maxay waxaadan qaadi karin ha qaadi. dadkeena qurbaha joogaan oo waliba dadka qurbaha joogaan u digaya
ودد آدي أدو نحريس بدل لكن ولا الحريس تاذي عيني كون قادة إن نفط هذا هلاكتي فإلهي محيري فأتي ذا القربى حقه والمسكين والخفق قرابة حريري مساكين كان واحد سين كرتسي لكن استريس أنا أن إسقليي أكله وحان إسسهاري أكله ومرك الدمنا اللي كرك يقول عاي والله الإسكا إلان إن شاء الله تعالى مرك إن شاء الله إنت سنكسو كذية فالله ما إذن برياء إلهي سبحانه وتعالى ليس برياء ما أنت هسبتال كان جوغان هسبتال إذا هيلندن هوسبيتال ومجالة لندن كويل marka ma arkaysaan dhakhtarinta baa mataqaana marka uu soo dhow shiinada qaylaan wad arkaysaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo bariyo hana la digtoonaado waxaadan qaadi karin ha qaadin walaysa aan qaadin ha qaadin udur kasta asbaab buu leeyahay wax kasta wax baa keena ma fahanti marka waxyaalaha hadda ani ugu rido waa kuu sheegay walaashay walaalkay waliba dadka qurbaha jooga ani aad ugu digayaa marka وحادا قاذي كرن وليس عادا قاذي كرن قاذي فالله وإذن بالرياء بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته